saldanadii cadal oo mar haanatay inta badan dhulkii xabashida. ugu dambeyntii waxa ay ku soo aruurtay Harar iyo hareeraheeda. geeridii imaam kadib muslimiintu waxa ay dib ugu soo noqdeen halkii ay halganka ka bilaabeen iyo magaaladii Harar iyaga oo aan lahayn hogaamideeya. muddo ayay qaadatay in ay dib usu soo abaabulaan ilaa aakhirkii uu taladii la wareegay Amiir Nuur Mujaahid. inkasta oo amiirku duulaan weyn ku qaaday dhulkii xabashida sidoo kalena dilay boqorkii xabashida ee Galawdaboos, haddana kuma nagaan dhulkaas wuxuuna ugu dambeyntii ku soo noqday Harar kuna geeriyooday iyadoo galaha ama oromadu ay ku sugnaayeen hareeraha magaalada. kadib geeridiisii xukunka waxaa la wareegay adoon xabashiya oo uu amiirku lahaa laguna magacaabi jiray Cusmaan iyo caruurtiisa ayaana muddo ka talinayay Harar ilaa aakhirkii uu bilowday loolan u dhaxeeyay reerkii uu ka soo jeeday iyo rag ay qaraabo ahaayeen Imaam Axmed Guri. intii uu khilaafkaas socday oromadu waxa ay dagaal joogto ah ku hayeen Harar ilaa ugu dambeyntii ay sababtay in caasimadii loo raro magaalada Awsa oo ku taalay dhulka Canfarta sanadkii 1577. laakiin u guuritaankii ay u guureen saxaraha Canfarta kama aysan hor istaagin qatartii oromada waxayna qabsadeen isla magaaladii Awsa sanadkii 1583 iyagoona halkaas ku dilay amiirkii ugu dambeeyay cadal ee Maxamed Jaasa. wixii ka dambeeyay xilligaas ma jirin dawlad dhexe oo ka dambeysay burburkii cadal marka laga reebo ismaamulo yaryar oo ka jiray magaalooyinka Harar, Awsa iyo Seelac. duulaamadii waaweynaa ee uu ku qaaday dhulkii xabashida Imaam Axmed Guri waxay kala dhantaaleen awooddii iyo heybadii dawladnimo ee xabashida. markii uu imaamku geeriyooday sidoo kalena ay daciiftay saldanadii cadal boqoradii xabashida ma aysan awoodin in ay dib u soo celiyaan nidaamkii iyo kala dambeyntii. waxaana gadood ba'an ku hayay shucuubtii gacantooda ka baxday gaar ahaan xilliyadii uu dagaalku socday. dhanka baddana khilaafadii Cusmaaniyiinta ayaa la wareegtay qarnigii 16aad xeebaha badda cas gaar ahaan Eritrea waxayna xiriir fiican la yeesheen shucuubtii Tigreega ee deganaa waqooyiga Itoobiya. isbahaysigaas ayaana horseeday dagaalo ka dhan ah boqortooyada xabashida waana xilligan markii ay bilaabatay cadaawadda gaamurtay ee u dhaxaysa qoomiyadaha Tigreega iyo xabashida. dhanka kalena qulqulkii oromadu waxa uu gabi ahaanba gaaray meel kasta oo ka mid ah dhulkii xabashida ilaa ugu dambeyntii ay u kala jabtay boqortooyooyin yaryar oo aan isku xirnayn mid kastana uu ka taliyo boqor hoosaad ay oromadu ciidan u tahay marka laga reebo boqorkii Gondar oo matalayay boqorkii boqorada xabashida. balse markii dambe xukunka dhabta ah waxa uu gacanta u galay oromada kadib markii uu boqorku ka guursaday uuna ku qanciyay in ay qaataan diinta Masiixiga. waxaa hoos u dhac weyn ku yimid nidaamkii dawladnimadii dhaqaalihii diintii iyo isku xirnaantii boqortooyada. dawladdii xabashidu waxa ay gashay 3 qarni oo go'doon ah laga soo bilaabo qarnigii 16aad ilaa qarnigii 19aad. waxaa xirmay xiriirkii ay la lahaayeen dawladihii Masiixiga. waxaa meesha ka baxay awooddii Boortaqiiska ee bariga Afrika. waxaa dumay dawladdii Byzantine oo ay isku caqiidada ahaayeen. waxaa xirmay dariiqii ay Masar u mari jireen oo ahayd halkii looga soo diri jiray baadirigoodii diinta. waxaas oo dhan waxay ka dhigeen dawladdii xabashida mid aan wax xiriir ah la lahayn caalamka intiisa kale. taas ayaana sababtay in saamiyayaashii reer galbeedka ee soo booqday Itoobiya qarnigii 18aad ay la yaabeen heerka nolol iyo xadaarad xumo ee xilligaas ka jirta Itoobiya. dib u curashadii islaamka iyo sida ay ula wareegeen muslimiinta ganacsiga dhulkii xabashida. bartamihii qarnigii 16aad ciidamadii Boortaqiiska ee u soo gurmaday dawladdii xabashida markii uu dagaalku dhammaaday kuma aysan noqon dalkoodii ee waxa ay degeen dhulkii xabashida waxayna ka mid noqdeen bulshadii oo ay ku milmeen kana guursadeen. Boortaqiisku waxa ay bilaabeen in ay dadkii ugu wacaan madhabkoodii Kaatooliga ilaa ugu dambeyntii ay ku guuleysteen
in ay ku qanciyaan boqorkii Itoobiya ee Susanios in uu qaato madhabka Kaatooliga sanadkii 1622. intaas kadib boqorkii waxa uu ku amray dadkiisa in ay ka tagaan madhabkii Orthodoxiska oo ay kumanaanka sano haysteen ayna qaataan madhabka Kaatooliga. tani waxa ay dhalisay carro shacab iyo mudaharaadyo waaweyn. dadku waxa ay ku dhawaaqayeen halkudheg ah in aan islaamno ayaan ka doorbideennaa in aan Kaatoolig noqonno. muslimiintu canshuur ayay naga qaadi jireen balse diinta nagama bedeli jirin. markii uu dhintay boqorkii waxaa xukunkii la wareegay wiilkiisii Fasiladaas, kaas oo dadkii mar labaad ku soo celiyay madhabkoodii hore Orthodoxiska. Fasiladaas waxa uu bilaabay abaabul uu ku beegsanayo Boortaqiiskii, waxa uuna dalkii ka saaray wadaadadii faafinayay Kaatooliga, isla mar ahaantaana waxa uu xiriir wanaagsan la yeeshay shucuubtii islaamka oo ay deriska ahaayeen, gaar ahaan boqorkii Yemeniyiinta oo uu ka codsaday inuu badda ka ilaaliyo. halkudhaggii xabashida ee xilligaas waxa uu noqday muslimiinta waxaa ka cadowsan reer Yurub, maxaa yeelay muslimiinta kuma qasbaan qofka inuu diintiisa ka tago. xaaladdaas adag iyo cadaawaddii hore oo ay xabashidu u qabeen islaamka oo hadda u wareegtay Yurub waxa ay saashay in islaamku si fudud ugu fido dhulka xabashida. fiditaankii islaamka waxa uu qayb lixaad leh ka qaatay ganacsigii ay muslimiintu ku yeesheen dhulkii xabashida, waxaana jiray laba sababood oo waaweyn. kow, waxa ay gacanta ku hayeen muslimiinta dekedihii iyo waddooyinkii ganacsiga. tan labaad, dadka xabashidu waxa ay u arkayeen ganacsiga xirfad xaqiran oo laga faano. labadan sababood ayaana ka dhigtay muslimiinta in ay ganacsigooda iyo dacwadooda ay si xor ah ugu fidiyaan dhulkii xabashida, waxayna bartilmaalmeedkoodii ugu weynaa ay ka dhigteen qowmiyadihii diinla'aanta ahaa sida Oromada oo ugu dambeyntii qayb weyn oo ka mid ah ay islaameen. qabaa'ishii Oromada ee sida weyn islaamka u qaatay waxaa ka mid ahaa Oromada Waalo oo ahaa reerkii uu la xidhiidhay boqorkii Gondar, kuwaas oo aakhirkii la wareegay awooddii iyo taladii dhulkii xabashida. waxaa sidoo kale islaamkii qaatay Oromadii deganeed Jima oo uu u talin jiray Abaa Jacfar. reer Baalle ayaa iyagana islaamkii u dhex galay ilaa badankoodii ay qaateen. isku soo wada duubo sida uu sheegay James Bruce oo ahaa saamiye Ingiriisa oo booqday dhulkii xabashida bartamihii qarnigii 18aad, waxa uu sheegay xilligaas in 3 meelood meel dadka xabashida ay muslimiin ahaayeen. xawligii uu islaamku ugu fiday qabaa'ishii Oromada ee koonfurta iyo bariga xabashida si ka hooseeya ayuu ugu fiday Oromadii deganeed xuduudda u dhow Harar. qabaa'ishii Oromada ee qabsaday dhulkii ay marka talin jirtay saldanadii Cadal weli waxa ay ku mashquulsanaayeen go'doomintii ay ku hayeen magaalada Harar. Harar ayaana xilligan ahayd ismaamul magaalo oo ay ka talin jireen qoys u nasab sheegta ashraaf, balse sidoo kale la sheego in ay ahaayeen Jabartiyiin. wixii ka dambeeyay xilligaas Masaarida ayaa ka talinaysa Harar, gaar ahaan dhammaadkii qarnigii 19aad.